horta marka ugu horeysa waxaan dhageysanayay markii laga bilaabo maamul gobol degmo iyo dhamaanba waxgaradkii isugu yimid hoolkan loogu talagalay hoolkii doorashada oo quruxda badan ra'yigiinii iyo wixii aad qabteen oo dhan yaan aad iyo aad u dhageysanahay waxaan aad iyo aad u filahayaa wax kasta oo maanta aad ku hadashaan waxunba kuma adnaan hadlini oo doorashada ku saabsan oo cabasho ah oo aad ka cabateen dawladda federaalka ah oo Soomaaliya oo aad ka cabateen ra'iisul wasaaraha oo aad ka cabateen gudiyadii doorashada oo aad ka cabateen Jubbaland kala tagnaanshaheeda iyo tafraaruqa aan hadda ka hadlaynin oo daneeyaasha adduunka iyo dhamaanba Soomaaliya oo dhan ay ogsoon tahay wixii aad ka cabateen waxa weeye wax gar ah oo xaqiiqdii yaani ma aragtaaye idin muuqatay weeye arinta ayada ah waa arin jid aad ku leedihiin inta haddaan ka gudbo waxaan u gudbahayaa warbixintaydii aan xamar aan uga imid yani idin soo gudbinayaa marka ugu horeeyo shalay intii soo dhaweysayna waa u sheegay intii ka maqnaydna dhamaanba madaxdii qaranka aad iyo aad bay idin soo salaamahayeen iyo waxgaradkii Soomaaliyeed iyo intii deegaankan gobolka gado ka tirsan oo waxgarad ahayd oo akhyaar ahayd dhamaanba waa la idin soo salaamahay inta haddaan ka gudbo waxaad ogsoon tihiin in doorashadii dalka Soomaaliya loo dareeray 11 gooboodna la asteeyay oo dawlad goboleed kasta loo asteeyay 2 gobol labada gobol oo la asteeyay oo midu ay tahay magaala madaxdii haday rasmi tahay haday ku meel gaar tahayba waxa lagu asteeyay wax qof rabitaankiis ah ma ahane waxa weeye wax sharci ah oo muddo dheer oo sanad gaarahaya loo fadhiyay oo madaxda qaranka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadaba ay u fadhiyeen daneeyaasha Soomaaliya oo hawshaas ayada ah ka qayb galay oo in ay Soomaaliya wax u hagaagaan ayaguna ka shaqaynaysay ayaguna aanu mahad celinayno iyo intii dawlad federaal ah oo qaranka calankiisii ah iyo dawlad goboleedba intii ku dadaalaysay in doorashadu ay qabsoonto oo isbedel yaani maaragtay nabadeed lagu kala wareego kursiga qaranka muddadaas dheer yay soo socota inta markii laga gudbana waxa ugu dambeeyay oo lagu soo gunaanaday taariikhii hadda laga sheekeynayay oo u dambeeyay oo ah 17 September oo ah heshiiskii Baydhabo Soomaaliya ha taabatay haddana gada ay u xoog badnayd hawsheeda in lagu soo gabagabeeyo wax walba oo heshiis ahna haddayna sharci marin ma fulaan heshiis buu noqdaa heshiisna sharciga ka weyn barlamaankii qaranka Soomaaliyeed oo tobnaad yaa la mariyay laga bilaabo doorasho maalinkii loo dhaqaaqay wax kasta oo hakad ah iyo wax kasta oo horumar ah waxaana lagu dhameeyay wax alla wixii khilaafaad ahaa oo dhan waxa lagu dhameeyay maalmahaas hadda aan sheegnay bilaha aan sheegnay oo ama Baydhabo ama 17 ah waxaana gabagabeeyay arintaas ayada barlamaankii qaranka oo ansixiyay oo tobnaad inta bal horta saa u ogaade wax qof gooni meel uu la aadi karo iyo wax qof gooni ah uu gobol jeeb gashan karo waa ka weyn tahay xaajada maanta taala waa wax qaranka Soomaaliyeed uu gaaray adduunkana goobjoog uu ka ahaa inta haddaan ka gudbo waxaad ogsoon tihiin ra'iisul wasaaraha qaranka doorashada asaga ayaa loo dhiibay hadday ceeb imaadana asagay saaran tahay dibteeduna waa wax Soomaaliya oo dhan wada gaarahay hadday amaan imaadana amaanteedu leeyahay waana wax Soomaaliya oo dhan wada gaarahay inta haddaan ka gudbo ra'iisul wasaaraha qaranka maalin dhan buu waqti fiican yuusiyay wafdi aan anigu hogaaminayay oo gobolkan gada ka socday oo u tagay wafdigaas ayada ahna wada hadalkii aan wada hadalnay ayadoo waqti dheer
hadda fadhideen waqtiguna kulul yahay waqtiga salaadana ay taagan tahay waxaan idinkugu soo koobahayaa wax allaala iyo waxaad adinku halkaan ka sheegateen oo dhan waxaan ka tagnay ma aysan jirin inta markii laga gudbo oo waxaanu dhaafnay ayna jirin hadday abaar tahay iyo hadday doorasho ahayd labadaba waxaan rabaa marka inaan ku soo koobo su'aal aad halkaan iga weydiiseen oo ra'iisul wasaarihii wixii aan ku kala tagnay maxaa ka haysaa waa qodob waxa kale oo aan rabaa inaan ku soo koobo ra'iisul wasaaraha wixii aan ku soo dardaaranay inta labadaas qodob joogsi xariiq ah oo hoosta aan ka xariiqayo yaan ka dhigayaa ra'iisul wasaaraha qaranka in doorashadii laba goob dagaaneed oo dawlad goboleedyada ay maanta dhamaad yihiin gadana aan laga qabanin arintaas ayada ah yaa ummadiina ka taagan tahay annaguna aan ka soconnaa qodobkaas ayada ahaan ka jawaabahaya ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri jawaabtiisa inaan idin siiyo ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri marka ugu horeysa waxa la gaaray wax qof uu gaaray maahane waa wax qaranka uu gaaray ummadda Soomaaliyeed ay gaartay anna ma bedeli karo cid kalena ma bedeli karto doorashada Soomaaliyeed oo la qabanayo oo qayb ay ka tahay gobolka Gedo oo ugu weyn gobolada Soomaaliya ugu weyn way ka dhacaysaa boqolkiiba boqol bay ka dhacaysaa sidaas ayada ah baa ra'iisul wasaaraha yaa jawaabtaas ayada ay noqotay waan ku mahadinaya inta haddaan ka gudbo waxa inta noo dheer ra'iisul wasaaraha waa kii noo yimid afar dawlad goboleed wasiiradoodii oo ra'iisul wasaaraha ayaguna maalin ka dambeeyay ama laba maalin ka dambeeyay waa kuwii noo yimid wixii wanaag ah iyo wixii sharaf ah oo idin kala kulmeenna waa arkeen annagana waxa weeyaan mahad celintanadu way la jirtay oo wixii halkaan ay ka arkeen yay siday ahayd ay u qaateen oo qaranka Soomaaliyeed ay ugu gudbiyeen inta hadii laga gudbo heshiis la gaaray oo baydhaba lagu soo gaaray oo doorashada qaabkii loo marahayay kamid ahay yaan inta isku raacnay ayaguna meel walba intay mareen oo dalkoodii iyo dadkoodii bay yimaadeen ay arkeen yay waxay ogaadeen inay biyo kama dhibcaan tahay sidii ayada ahayd ba ayagoo nala joogo yaa gudoon yay ku qaateen annaguna gudoon baan ku siinay arintaas ayada ahi waa afartii maamulka ahayd oo loo gudbinayay Jubbaland markaas ayada ahna habka doorashada iyo xaaladka un taagan weeye waxa u dhaxeeya Jubbaland ayaguna way og yihiin annaguna waan ognahay Jubbaland dhexdeeda waxyaalaha ka jira oo tafraaruq ah aad bay u og yihiin intaas haddaan ka gudbo annagu Jubbaland baan nahay Jubbaland haddii aynu nahayna waxa weeyaan waxaan nahay gobolka ugu weyn yaanu nahay dadkii Jubbaland dhisay oo Soomaaliyeed baanan koow kana taas ayada aan ogaada waxa kale oo inta ka soo harsan waa sidii Jubbaland loo hagaajin lahaa way inta halkaas haddaan uga baxo ra'iisul wasaarihii waxaan weydiiyay su'aashaad weydiiseen oo ah heshiiskii wasiir goboleedyadii ay ku keeneen adigana ay ku soo gaarsiiyeen maxaad nooga haysaa jawaabteedii ra'iisul wasaarihii wuxuu yiri waxba kama hayo waxaan ka hayo oo wixii ay wasiiradu ii keeneen anna ii yimid jawaabtooda inay soo noqdaan ay ahay ma hayo inta horta ayadana sidaas ayada ah yaad u ogaanaysaan abaarihiina waa kala hadalnay eraygan gadaal baan wax ka dhihi doonaa abaarihii baan kala hadalnay abaarihiina waxa weeye ummadda Soomaaliyeed oo halka taagan aad iyo aad baa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo iyo ayadana uga hadlay oo yiri abaarihii culays badan baa yaallay gurmad baa lagu jiraa gurmad yaa lagu jiraa intaas haddaan ka gudbo waxaan u soo noqon hayaa doorashadii qodobka iigu dambeeyay oo aan ka dhihi lahaa yaan u soo noqon hayaa doorashadii qodobka iigu dambeeyay oo aan ka dhihi lahaa waxa weeye marka ugu horeysa Soomaaliya doorashadeeda waa wax isku xiran ee wax
meel gooni ah qof ugu jirta jeebka ma ahan ee waa wax isku xiran oo doorashadeedu mar ay ka wada dhacayso marna ay wada dooranayaan madaxdii qaranka oo isbedelaysay ay wada dooranayaan weey adinkuna waxaan idin sheegaynaa kuwaas ayaga ah yaad kow ka tihiin sida ra'iisul wasaaraha uu sheegayna waxaan sugaynaa waxa weeyaan in sanduuqii iyo sanaatiiqdii iyo gudiyadii doorashada inay yimaadaan sida aan ku soo ballanay intaas haddaan ka gudbo waxaan idin sheegayaa caradii hadda idinka muuqatay guddi baa la soo dirahayaa ayay ahay waxaan idin xasuusinayaa maalinkii la soo dirahayay raggii wasiirada ahaa ee horeeto warxuma fara badan iyo warxuma tashiil badan yaa yaalay oo wasiiradaasi wax badan laga sheegayo qaarkood wax badan laga sheegayo haddana waxaan caawa aanan isu sheegaynin inay ahaayeen rag Soomaali ah oo aad macna ugu fadhiya oo markii dadkoodii ayagu ay isu yimaadeen waxa xaq ah iyo waxa ummaddu ay u baahan tahay isla gartay raggaas ayaga ah markaan isqaabilaynay oo warxumadu ay socotay wixii aan ku wada hadalnay wuxuu ahaa dadka gobolka Gedo oo reer Jubbaland waa dad wax garad ah waa dad Soomaalinimo jecel waa dad midnimada jecel waa dad walaalahood hadday marti yihiin iyo hadday wada degan yihiin ba inay wanaag iyo walaalnimo ku wada dhaqdaan jecel wixii wanaag ad wadaanna hadee waa la arkay ninkii wixii laga sheegahayay oo banaanka looga sheegahayay la yimaadana ayagana waxa soo kaleeto dad la mariya ma aha inta ayada ahayd ba intaan hore idin kugu sheegay hadda waxaan leeyahay oo aan u sheegayaa qaranka Soomaaliyeed dawladda federaalka ah aan u sheegayaa ra'iisul wasaaraha oo si khaas ah doorashada ugu xil saaran asagana aan shacabka gobolka Gedo hortiisa magaala madaxdiisa aan ugu sheegayaa doorashada sanaatiiqda gobolka Gedo magaala madaxdiisa baarlamaanka matalaada uu ku leeyahay qaranka Soomaaliyeed qarankii Soomaaliyeed goobihii loogu talagalay waa gabagabo ayaguna gabagabadaas ayada ah waa inay raacaan weey gabagabadaas ayada ah inay raacaan yaa laga sugahayaa ra'iisul wasaaraha oo qabanqaabada iyo gudoonka haduu ay ku soo ogol yahay doorashada loo dhiibay fulinteeda loo dhiibay siid iyo siid waxaan ka sugayna waxa weeye oo guddi madax banaan ah inay doorashadii halka kan ka qabtaan maalinka ugu dambaysa oo degmooyinkii goboladii labaad laga dhameeyo Soomaaliya inay la dhamaato arintaas ayada ah yaan ugu baaqaynaa in la keeno oo aynan maalin ka dambay inta waxaan kala raacinayaa dadka hadday wanaagsan yihiin oo Soomaalinimo ay ka shaqeeyaan haddii la haleeyo hadee halow ma yeelaan gardarrana ma qaataan waxaan leeyahay dadku waxay sugahayaan cid kasta anaguna aan ugu baaqayaa cid kasta oo doorashada shaqo ku leh hadday erga tahay hadday xildhibaano tahay xildhibaano raadis ah oo 16 Soomaaliyeed oo halkaan kuraasta ku lahaa ah iyo cid allaaliye cid ay khusayso siid iyo siid ayagu warkooda daayo waa dadkii fulinta maaragtay u xil saarnaa weeye iyo hawshaas teknikadeeda inta ayada ah waxa weeye horeyna waan ugu dhawaaqnay haddana waxa weeye waan ugu dhawaaqaynaa waana ugu baaqaynaa inay meesha ayada ah gacmo furan loogu soo dhaweynayo cid kasta oo meesha tan doorashada tani shaqo ku lahayd nagalana qayb galaysa abniga iyo nabadda iyo wanaaga yaala meeshaan inay haduu la kuusuma ogol yahay ay ku yimaadaan nabad iyo abni inay nabad iyo wanaag inay ku yimaadaan